su-aasha saddexaad. assalaamu calaykum walaal ii fasir riyadan. qofaan aqaano oo i yimid guriga anigoo joogo iguna yiri go-aan huwada si guriga wada go-ah haddana aan go-u waayay. sheekh iisoo fasir. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دواذا شيخ ريمي جانل waxaan idin soo gudbinayaa insha Allah waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maxaad ku riyootay. axibbatii fillah, barnaamijkan maxaad ku riyootay isbuucii 2 maalin ayaan soo gelin doonaa insha Allah, maadaama dad badani ay soo weydiiyaan sheekh riyadii fasiraadeeda ma joojisay ay soo weydiiyaan. haddaba isbuucii 2 beri riyooyinka aan soo gudbinay ayaan idin sheegayaa si fiican ula socda. hadda tusaale ahaan su-aalaha hadda aadna soo weydiin doontaan commentiga noogu soo qoraysaan waxaan ka jawaabayaa arbacada biidnillaahi alkariim. videoga arbacada aan soo geliyo commentiga aad su-aalaha igu soo weydiinaysaanna waxaan ka soo jawaabayaa khamiista biidnillaahi alkariim. su-aasha koowaad intaan u gudagelin waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar, Allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa in uu ina wada siiyo dhammaanteena cimri dheer oo cibaado leh, adduunyo meelsan leh, aakhiro janno leh insha Allah. haddeertaana su-aalaha qaabkay u dhacayaan qaabkii hore waa ay ka duwan tahay. awalkii hore anigoo unbaa su-aalaha aad isoo weydiisaan idin sheegayay, jawaabtiin waa idin sheegayay بإذن الله الكريم. haddeertaan waxaan sameynaynaa yacni qof ka mid ah walaalada ayaa magaranaysaa su-aashaasi commentigiina akhrinaya, anigana waa idinka jawaabaya بإذن الله الكريم. saas ula socda. su-aasha koowaad ayaan gudaha u galaynaa, waxayna u dhacaysaa su-aasha koowaad sida tan. assalaamu calaykum sheekh, waxaan rabaa 2 riyo oo aad iigu soo noqotay. riyada koowaad waxaan markasta ku riyoodaa anigoo wadankeyga Soomaali u soo laabtay oo la tooganayo. midda xigta waxaan kala ku riyooday anigoo biyo ku hafanayo bad iyo biyo meel ku jira. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. gabadhan ama wiilkan su-aashana soo weydiisay, su-aasha koowaad waxaa weeyaan haddii adiga sida xaqiiqda ah oo wadankaagii hooyo aad ku laabanaysid sida Soomaaliya oo kale, hadda qurbaha adiga aad joogtid, haddii qalbigaaga tashwiish iyo shaki kugu jiray, shakigaas waaye waxa riyada aad ugu aragtay, dhib ma laha. haddii laakiin qalbigaada waxaas aad ku jirin aad ku riyootay markaad Soomaali aad ku laabato in lagu dilaayo, dad cadow ah ayaa jiro magaranaysaa raba inay ku dhibaato geliyaan, ilaahay ka magangal. su-aasha labaadna waxa ay tahay marba haddii aad ku riyootay adiga oo biyo ku hafanaya sida bad ama meel biyo ku jiro oo kale, waxaan ku dhihi lahay digniin ayaa jirto oo lagu digayo. su-aalahaasi waa yacni riyooyinkaas oo kale waa riyooyin dhab ah. wixii tabartaada ah ilaahay ka magangal, waayo digniin ayaa jirto. haddii cadow adiga aad laheyd meeshaad adiga u socoto ama meesha hadda adiga aad joogto cadowgeeda ka taxadir insha Allah. macna labaad ayay yeelan kartaa, waxa weeyaan dunuub ayaa jirto oo ku qarqinayso oo yacni magaranaysaa kumaashaynayso in aad dembi dhaaf ilaahay ka toobad keento ayaa laga rabaa. ilaahay wuxuu leeyahay mimma khati'aatihim ughriqu fa udkhiluu naara, gafafkooda sababkiisa ayaa lagu maasheeyey, naarna lagu geliyey. marka ilaahay kuma dhaho naar yacni inuu ilaahay ku geliyo kuma dhaho, laakiin dunuub baa jirto ka toobadkeen. haddii adiga wax dembi aadan isku ogeyn, inkastoo ibni aadan la yahay dembi aan laga marnayn, laakiin haddii cadow uu jiro cadowgaas ilaahay ka magangal inuu shartiis ilaahay kaa xijaabo. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. su-aasha labaad. assalaamu calaykum sheekh, wiil ayaa iga xanuunsan in muddo ah. markasta waxaan ku riyoodaa asagoo fiicnaaday. waxaan kaloo ku riyoodaa gurigeyga oo sixir laga soo bixinayo.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore ilaaha weyn oo qaadirka ah wax kasta aboodo waxaan ka baryayaa wiilkaaga xanuunsan in uu ilaahay uu ku caafiyo bidin illaahi alkariim. maadaama hooyo adiga aad tahay oo ma garanaysaay u duceey wiilkaaga waa ku caafimaadaya, anagana waa kuu soo duceyneynaa si kale iyo laab ah. ummadda imaqlaysana gabadhaas wiilkeeda ugu soo duceeya si ay u aragto riyadan ay aragtay si dhab ah, si ay ugu aragto insha Allah bidin illaahi alkariim. ilaahay waa ku caafinaya wiilkaaga. imaa midda labaad oo ma garanaysaay aad ku riyootay sixir oo guriga laga soo bixinayo, digniin ayaa jirto, ma garanaysaay awlaadaada laga waxyeeleeyey, dad adiga kuu dhow oo qaraabo ku ah ayaa ma garanaysaay awlaadaada kaa xasdeen. ilaahay ma garanaysaay ha kaa qabto xasadkaasi. digniin ayaa jirto, awlaadaada cilaaji ama canugan kaa xanuunsan cilaaji. والله سبحانه وتعالى أعلم. su-aasha saddexaad. assalaamu calaykum walaal, ii fasir riyadan. qofaan aqaano oo i yimid guriga anigoo joogo iguna yiri go-aan hooda si marada sariirta lagu gogolo guriga wada go-ah haddana aan go-u waayey. sheekh iisoo fasir. waxaan u fahmay gabar ayaa waxay dhahday qof ayaa wuxuu i weydiistay go ama marada sariiraha lagu firaasho gurigaygoo wada go ah ayaan haddana qofkaasi u waayey go-gii oo i warsaday. gabadhan qofkaaniituu go-a ku warsaday qof aan garanayo layaa dhahday qofkuu yahay ii soo sheeg, in lagu qabo iyo in aan lagu qabin ma garanaysaay ii soo sheeg. waayo su-aashani aad iyo aad bay ma garanaysaay halisteeda ay u leedahay, loomana maleeyo inay halis ay wadato. sidaas daraaddeeda waxaan kaa codsanayaa gabadha su-aashan na soo weydiisay in aad noo soo sheegto qofkaasi ninkaaga inuu yahay iyo ma garanaysaay iyo in kale, amaba in lagu qabo iyo in kale. intaas leen rabaa bes. qofkan qofku yahay ii soo sheeg, in lagu qabo inaan la qabin ii soo sheeg. arrin weyn ayaa igaga xiran. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. su-aasha kale u gudub insha allah. su-aasha afraad. sheekh 3 habeen ayaan arka riyadaas oo ah masaajidka anigoo ku jiro ayaa gabar qurux badan ii gacan haatinaysay. sheekh riyadaas wax ka dheh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرين وناكسن واي إن شاء الله بإذن الله الكريم. وحلو شيء hadda haddii cariiri iyo culeysyo adii aad dareemaysid in badan ilaahay bari, masaajida u badnow. gabadha quruxda badan ee kugu gacan haatinayso adduunyo waaye, adduunyo ayaa kugu soo food leh. haddii hadeertaan jeebyari iyo dhaqaale xumo aad ka sheeganaysay, waxaa kuu soo socoto nolol raaxa leh oo farxad leh, reen leh, barwaaqo leh bidin illaahi alkariim. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. su-aasha shanaad. assalaamu calaykum sheekh reemi, waxaan ku riyooday anigoo beer markaan yaraa laygu soo koriyey dhex joogo, dalagna oo ka baxayo, shimbirta booloboolada dhex joogto, nin dhalinyaro ah oo aan aqaano hab isiineyno, weliba aad u faraxsanaay. maxay noqon? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضاني وناكسن تهي وحان فيلها إن أن لغو قبين أما قبر أهو أما بقروب أهو، لكن سي إن شاء الله قف أيا كسود دونو أديك كفر أحسن تهي كان هذا لجرتيد بها هذا هدي هذا قف لجرتيد هدي هذا قف أذن لسعنين إن شاء الله قف أيا كسود دونو أولاد بدن إن شاء الله رك يدمر سوق جراءه أيات أولى دونتا بإذن الله الكريم. وهي وناسن كوب شاريسو. والله سبحانه وتعالى أعلم. سؤال حكتا. سؤال لحد شيخ وحن كوريودا بريخ عيسى انتان اسكو نحي لا عويس رحي لا محاواي بريخدان وقت جيس لما قارني. يعني وحن أفهمي بريخ أيا عيسو بريخ داسي ويكن حذي قفكاسي رك دمر وحو يهي موغي لا ودهي محاواي وقتي او بريخ دعي لهد روبك ولا مجوغي لابا متواي haddii adiga qof muqiim ee aad tahay yani wadankaaga aad joogtid, xaafadaada aad joogtid, ehelkaaga qaraabadaada adiga aad la joogtid, way ku wanaagsan tahay. waxa ay noqonaysaa mataqaanaa haddii deyn lagugu lahaa deyntii ayaa kaa baxayso, haddii aa xanuunsaneed ii sheeg adiga caafimaad ayaad helaysaa, haddii ma garanaysaa hoos aad u taashay kor ayaad maraysaa. laakiin haddii wadankaada aadan joogin, dal aan dalkaaga ahayn haddii aad joogtid,
waxaa soomaalida ay ku mahmahdaa dal aan dalkaaga ahayn dareen ku joog aa la dhahaa. haddii wadan kale adi aad joogtid ama qurbaa ha ahaado ama carabaa ha ahaado, khoof waaye, cabsi waaye. ii sheeg adiga dad adiga aad ka dhudhuumanaysid amaba adiga aad ka shakisan tahay amaba ma garanaysaa cadow ah ayaa ma garanaysaaye ii sheeg adiga ku dhibaato gelin doono, ilaahay ka magangal. laakiin haddii wadankaada aad joogtid, haddii qof kaa xirnaa qofkii ayaa ma garanaysaaye lasoo fasaxaya. haddii ma garanaysaa deyn lagugu lahaa, deyntii ayaa kaa gudmayso. haddii adiga dhibaatooyin aad ka sheeganaysa, dhibaatadaas ayaad si degdeg ah lama filan ah aad uga baxaysaa biidni illaahi alkariim. waa riyo wanaagsan. wallahu subxaanahu watacaala aclam. su-aasha xigta. su-aasha todobaad. assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday anigoo meel dheer ka soo dhacay. marar badan ayaan ku riyooday. ii fasir, jazaaka allahu khayr. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. marar badanna waa sheegnay, riyada meesha laga soo dhacayo ma fiicna. riyooyinka aan la sheegin ayayna ku jirtaa biidni illaahi alkariim. ilaahay ka magangal. haddii aad riyadan oo kale ay kugu soo noqoto, dhinacaaga bidix 3 tooka u tuf, 2 rakac tuko, ilaahay sharteeda ka magangal. qof kale imaqlaayo haddii riyadan camal uu arko ha soo sheegin. riyooyinkan oo kale lama sheego, laakiin hadda maadaama aad i warsatay, aad isoo weydiisay, waan kaaga jawaabaya. riyooyinkani waxa ay la mid tahay mashruucyo badan adiga aad wadatay ayaa yacni ma garanaysaa kaa fashilmi doono. haddii adiga naagtaada aad ishayseenna, naag adiga aad qabtay waad kala tegi doontaan. haddii shaqo aad ku jirtay, shaqadii ma garanaysaa waa lagaa ruqsayn doonaa. ma fiicno. ii sheeg haddii qof magac le aad ahayd, magacaaga hoos ayuu imaanaya. ii sheeg adiga riyooyinkan oo kale ma fiicno. maadaama aad i weydiisay, ii sheeg adiga waan kuu sheegay. waxana waa ta'wiil waaye. runna way noqon karaan, beenna way noqon karaan. mana aha inaad ma garanaysaa hadalkan kuu sheega keliya inaad adiga aad aamintid, laakiin ilaahay in badan ka magangal. qofka riyooyinkan arkana waxaan kaa codsanayaa inaadan sheegin, ilaahay in badan aad ka magangashid. wallahu subxaanahu watacaala aclam. midda xigta. su-aasha 8aad. assalaamu calaykum sheekh Riimi, riyo ayaan rabaa in aad ii fasirtid. xaaskayga ayaa ii sheegtay in ay ku riyootay anigoo furay ama kala tagnay. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. xaaskaaga ayay riyadan ay ku xiran tahay. xaaskaaga haddii markay caadi ay tahay oo khilaaf idinka dhexaynin, runna ay sheegayso, riyadeeda waa ma garanaysaa waa la ictimaadi karaa. laakiin haddii xaaskaaga oo ma garanaysaa khilaafaad uu idinka dhexeeyo, ama ma garanaysaa maseer yar uu ku jiro, hinaaso yar uu jiro, caynkan ay ma garanaysaa ay aragtay, ii sheeg adiga ama ma garanaysaa soo jeedkeeda ay hadal waxyar iska sheegto, ictimaad ma noqon karto. xaaskaaga ayay ku xiran tahay. hadday dhibaato idinka dhexaynin, run sheeg badan tahayna ii soo sheeg si aan ma garanaysaa kuugu sheego. haddii xaaskaaga khilaafaad idinka dhexeeyana, meesha ku dami. waa hadal iska caadi ah. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada xigta ee 9aad. su-aasha 9aad. sheekh, allah ku dhowro acmaashaada saalixa, allah ka aqbalo. aamiin ya allah. sheekh, waxaan ku riyooday xaaskayga oo xaamilo ah, hal wiil ahna caloosha ku sida. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. riyada xaaskaaga oo xaamilo aad ku riyootay, insha allah bidni alkariim, haddii culeysyaal badan adduunyo dhibaatadeeda aad ku jirtid, insha allah faraj ayaa kuu furmi doono. haddii xaaskaaga ayadoo dhaleys aad arki lahayd, way kasii wanaagsanaan lahayd. hadeertaan sabar, dadaal, gargaarka ilaahay waa kuu soo dhow yahay biidni illaahi alkariim. maxaa yeelay xaamilada culeys waaye, dhibaato yar waaye, shiddo yar waaye. qofta markay dhashana way nafistaa sooma. marka xaaskaaga hadday dhali lahayd aad arki lahayd, way fiicnaan lahayd. laakiin iyadoo xaamila ayaad aragtay, insha allah qof kastoo xaamilo ahna mar unbuu dhali doonaa sooma. marka dhibaatada ku hayso, mar un baad ka bixi doontaa. sabar. wallahu subxaanahu watacaala aclam. su-aasha 10aad ee ugu dambeysa. su-aasha 10aad. assalaamu calaykum sheekhow, marar badana kusoo weydiiyey riyooyinka, igama soo jawaabin. 2 riyo ayaan marar badan igu soo lalaabtaan. riyada koowaad, 3 abeeso ama jiir 2 ka mid ah waan dilaa, midba iga fakada. midda xigta, dad mar hor dhintay ayaan arkaa. waxaa igu dambeysay ayeeyo iyo awoowe ilama hadleen. ayeeyo waxay ii keentay caano aad u macaan badan, 1 koob
waxay igu tiri maxaad noo soo salaam weysay iga jawaab. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. haddii qof xaasle adiga aad tahay midda hore waxa weeyaan oo abeesada iyo jiirka adiga aad arkaysay horta isquraami marka hore. markeeda labaad haddii ninkaaga naag aad ku ogtahay waaba naag aad ku ogtahay. haddii ninkaada naag aadan ku ogeyn naag ayaa jirto. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada labaad dadkii dhintay aad aragtay waalidkaaga awoowahaagii ayeeyadaada ii sheeg adiga maadaama aad aragtay iyaga oo caano bixinaya amaba ay yani caano qaybinayaan haddana maxaad noo soo salaami weysay ay ku dhaheen sadaqa u bixi u duceey ma garanaysaa ilaahu awoowihii ayeeyaday dembigooda dhaaf dheh u naxariisa dheh biidni illaahi alkariim. wixii awooddaada ahna sadaqa jaari ah hal kutubba allaha ka dhige masaajid u dhig. والله سبحانه وتعالى أعلم. أحبتي في الله أنت صحيح كسو جبجبية طبعا كسؤالات واي قفكي سؤال شيسا مقرنا ساي أن كسو جوابي الحمد لله. قفكي سؤال شيس أن كسو جوابين وترى لي أهان سكس وجم أنتجين لكن واحد أوجاني سان إن سؤالها جوابي دود عن حوج سارينو سؤال شجابا إسلام مركز نصفي عن لو سو قري أو لآخرين كرو ayaan ma garanaysaa ka soo jawaabaynaa. ha isku dayo qofkiiba inuu hal su'aal kaliya uu inoo weydiiyo. ha isku dayo insha Allah biidni illaahi alkariim. cawad intaasaan kusoo gabagabaynayaa. waxaan helayay nafci shaydaan bay ka ahaadeen. waxaan hagaajiyay jar Allah naga siiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.